وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى كسر الرمي كسر شيء المنافقين يوركوا ده الله يقول وإذا قرت قيل لهم لهم إياك لا تفسدوا خربنا في الأرض للكا قالوا حيرنا يعني إنما إن كلمة هي نحن أنه مصلحون وهجاتنا يرون ألا هو يبرالوغا وأغادا إنهم إياغو هم إياغا أمبا المفسدون هو خربيا ولكن هسيا شيء لا يشعرون دريمنا إياه ما درين سنة ويسلا سحنيه لكن عندما خربيسا وإياغو marka la taliyo dhulka kharibina muxuu yakhribku dhulku waa hagaagsan yahay wala tusilu fil ardi ba'da islahiha diin iyo tawxiid iyo alla ka cabsi ba ku hagaagsan yahay dhulku marka la kharibina kufriga iyo amalka xun iyo macsida ba dhulka khariba isaga baabiya isaga wanaaga u diida isaga walaalaha iyo abaaraha iyo xumaanta iyo fasaadka keena hadii ilaahay laga boqo barwaaqa iskaga jireeyo كابوكا خربينا أنا قاعد أحكي لي وحيابها مركا يقولك كو خربيان أوجه الفساد وحيابها يكون فسادينيان وحويان كون معصية أي عاصية رب سبحانه وتعالى وحيكون كو فسادينيان ويقولك كو خربيان فرض كي أي ضيعيان الفرائض إلهي صارت وحيكون كو خربيان صدح شكي أي دين كشكيان أو مدنا قفنا aanu xaqiiqadii diinta rumaynin shaki jiro dadkana ay ka shaki gelinayaan waxa kale oo ay dhulka ku fasaadinayaan beenta ay muuminiintu u sheegayaan oo iyagoo aan muuminiin ahayn ay oranayaan muuminiin baa waxa kale oo dhulka ku kharibayaan muuqaalada ay sameynayaan oo ah inay caawinayaan kuwii xaq beeniyay iyo gaaladii إلهي سبحانه وتعالى دين تكون كسر ورشة العلقها يعني عاونا يعني وسط كلاش قيمية سرت ورك وحول بالبنية لكن خرب بدل بورا وفساد وبدنيه بنع مسلمين تري شكل جليا نحمان كل حوالان بنع بين بيشيجيان بنع جارة لاش قينيان بنع شكل رأيك دينته فرأيك ولا ضيعي محاسدة دنوبته خربوي ليش منافق وشوجو خرب فساد وحشة أنت عوض مركز لا تليو لو قولك خربنا فسادنا حوالي أنا قاعد أحكي أساس منافق كان لا دينتي نفاق كجرا ملك استشوي زمن كسته نبي محمد شوجين حد الوالد وحى حوالنا يا مركان كو حاجاتنا يسألني خطبها يفسحها يفتهني مدى يقعد الضغيو يحجدا حوالي وحاصل هو خراب يفساد وضوء وحنا يا مركا إنما نحن مصلحون أنا قال إصلاح وناجا كشقين ملك وناجين ومحي كون وناجين طريقة نقوى من صنعنا وطريق صحن بليه الله سبحانه وتعالى وحوليه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يقع وحربيا لكن محمد الإنسان هل كاس مركا تفسير لبعض باكرة إنما نحن مصلحون ورانيا waxaanu nahay islaaxa kuwa ka shaqeeya oo labada qolo marka qolada maxaa gaarada maxaa waa shirayeen waxaanayaan u dab qaadayna oo qolada waxaan rabnaa dadka dhexe ee dadka oo dhan isu keena xaq iyo xaqaba suuxiinta ah ee wax ka shaqeeya islaax bayna alfariiqayn inaan noqono macnaha hore ayaa raajix oo inay isu arkaan dhulka inay iyagu hagaajinayaan oo islaaxiisa wanaagiisa waraan وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كلمانه ويقول ومرب بليه وإذا قلت قيل لهم إياغا منافقين آمنوا همايا كما سيدا آمن الناس تدخل همايا يعني صحابة داس سيدا إيمانكم يقول سمي إيه محمد وكل صونادين الدين تيو قبتين الرمايين ساء الرمايا مركز على قوله قالوا حورنا أن نؤمنوا ووحانا أرمينا كما آمنا سبع أرميين السفهاء ما انقابيضوا
kuwaan caqliga badnayn say u rumeeyeen miyaan u rumaynaa marka ayay durayaan mu'miniintii bay durayaan ka sheegaya gaalku waa saas had iyo goor isla weyn marka waxaan arkay qofka diinta ka sheekeeya iyo qofka sifaadkii iyo tilmaamihii iyo aahaartii iyo raadkii diinta iyo ka muuqdo qolada qolaha dhay weeye dib u dhacba ka dhigaya gabadhan xijaaban waa takhalluf iyo marka qofku inuu ilbaxnimadii iyo horumarkii wakaan sidan ka dhigo qofkan weli diinta iyo ka hadlaya erayada diinta iyo adduunka xagu maraya la kulanaya meel kale lagu socdaa marka waa meesha lagu socdaa diinta weeye wanaag halkan qofka diinta haysta ayaana wanaagsan wey amaa qofka diinta ka fogaaday kaasa doqona marka alla wuxuu leeyay alaa hooyay innahum iyagu hum iyaga unbaa assufahaa maangaaba ku caqliga xuni waa iyaga walaakin hase yeeshee laa yaclamuuna garan maayaan isma oga iyagu waxay moodayaan isla waaweyn yihiin oo inay qiimo leeyihiin bay ismoodayaane caqli ma lehay waa dad liita weeye sufaa haddii maangaab iyo doqon la sheego qofka caqligiisu gaadhsiin waayey inuu alla rumeeyo oo diinta qabsado oo ku camal falo faraa'id ilaahay qabsado kaasaa doqona marka waxaa ka mida markaa walaakin laa yaclamuun min tamaami iljahli jaahilnimadooda dhammaystirankooda waxaa ka mid a annahum laa yaclamuuna bixaalihim fi dalaali waljahaala xaaladda ay ku jiraan ismaba ogaba oo qofku marka wax uu ogyahay in wax ka dhiman yihiin mar uunbuu hagaagaayo ku darsadaayo soo kabtaayo muxuun baa ku jira markuu nuqsaan dareemayo qofka marka xusanaya wax baro oo xeel oo waxbaa ku jira laakiin marka uu is yidhaahdo wax walba waad haysaa waad dhan tahay markaas wuxuu ku jiraa tamaam aljahl jahilnimo meesha ugu xumay walaakin laa yaclamuun saas adamu isma oga xitaa hadday sagaajin lahaayeen waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun tilmaamahoodii baa la sii wadaa waidaa goorta laquu ay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey oo mu'miniinta ay soo dhex galaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa rumaynay anaguna mu'miniin baanu nahay dadkaa dhinac ka raac isku daraya aan lagaa garan aamanna rumaynay dadku ka mid yahay waidaa khalow markay gaar la noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodii khalow marka ilaa lagu gudbiyo bimacna alinsiraaf buu dhaansan yahay xarfu jarka ilaa wuxuu inoo sheegayaa ficilka khalow ah inuu insiraaf wato insarafa ilaa markay u insiraafaan oo u leexdaan u noqdaan aadaan ilaa shayaaiinihim shaydaanadoodii qaaluu waxay odhanayaan innaa anagu macakum idinka miciinaanna inamaa in kale maaha naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjeesayay baanu nahay oo qoladii markaan la soconnay kamaanan mid ahayne xoogay iyagaan ku jeesjeesaynayo dad iska ducafa ah oo marka la yidhahdo intaasay ka helaan idinkaanu idinka mid nahay iyo intaasumaa lagu yidhahdaayo iyagaanu khaldaynayo ku jeesjeesaynay annagu meeshaanu nahay iyo waxaanu nahay waa la yaqaanaa bay odhanaya marka waa laba carablayaal wey halkan waxbay ku joogaan xaggana waxbay la tegayaan shayaadiintooda ay aadayaan waxaa la yidhi waa madaxdii yuhuudda ee dee meesha u fadhiday ay ka dab qaadanayeen waxaa kaloo leeyahay waa madaxdii munaafiqiinta ee shirkoodii gaarka ahaa iyo hogaamiyeyaashooda markay soo fadhiistaan waxaan odhanayaa innaa macakum idinkaanu ka mid nahay oo munaafiqiinnaanu nahay waxba iskaba kaaya bedelin marka loo yeedho hebel iyo hebeli baad la socotee beryahan xagga miyaad goosateen kuwaad ka mid noqotay hormay waa qaldayey waa la qaldaa inamaa naxnu mustahzi'uun allahu yastahzi'u bihim wayamudduhum fii tughyaanihim yacmahuun allahu alle yastahzi'u wuu ku jeesjeesayaa bihim iyaga wayamudduhum ay yaziiduhum wuxuu u kordhinayaa fii tughyaanihim xadgudubkooda dhexdiisa yacmahuuna kuwa ku indhala oo ku wareersan inay noqdaan camah alxiira oo wareerka kuwa ku indhala oo ku wareersan inay noqdaan camaa iyo camah baa kala jira camaa waxaa loo isticmaalaa qof markuu indhaha la'yahay camahna waxaa loo isticmaalaa markuu qalbiga la'yahay marka yacmahu qalbigii baan waxbala oo wareersan yahay marka ku wareersan yahay waxba arki maayo marka duqyaankoodaasoo alle u kordhinaya halkan marka qofku xumaanta iyo munkaraadka iyo dembiga galo waa loo sii kordhiya ilaahay sunankiisay ka mid tahay falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen qalloocdeen alle qalbiguu sii qalloociyey
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما خير كردي مايه دنب إنه كردي يمود خير كردي مركع الله يحليه ويمدهم في طغيانهم حددهم كل الأسي كردينيا يقول كورة يسمى هل كان مركع استهزاء ليه الله يستهزئ بهم إلهي بقى كل شيء سياسية شاس كاني إلهي سبحانه وتعالى وكان سهية هي عبث عيار شاس أنا لو كان سهية تفسير كذا علماء الله يفسرين الله كل شيء سياسية مع عناننا يا الله سبحانه وتعالى وكل عناننا يا وحي سمية حكى له مفسرين شاسكو ومقابل يجعل يجلسه هرشيلا أو وحي قفكو سمية مركب وقاته هي ما هذا كل شيء سياسي هي أنا كل شيء سياسي هذا وقبت مركب جواب وين سو سواه الله لو جوابيه قاب هذا كله دقيق بلو جوابيه لا شيء سياسي هي والله هي هذا لو شيء سياسي هذه اللي قاعد يقولي انت حسن وانس ومكروا ومكر الله ولم يتم ومكروا ومكر الله يخادعون الله وهو خادعهم إلهي بقلديان سوديان قلدان هو خادعهم سايا قلدي إلهي سايا مكري نصر الله إلهي إلا وين فنصيهم لا يحب إلا هو يسألون سي سيدو كرم الله معامله وجوابه مركا معها حق على الاستهزاء كمعها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كي بكحد قدبة تنضم بحد قدب معها ظلم معها وهرا ظلمية وجزاء سيئة مثلها حمان أبال كيدو حمان لم يلوي تن لم يتكاهي وأباله يدو حمان معها تي هرا حمانه يصاول عنها ظلمك أهيت مركا استهزاء حق أسا استهزاء حق على كمعها سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم حكر لنيا في طغيانهم حدودهم كودا يعمهون وقوة السنير وكؤن لأول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله سبحانه وتعالى كقول رمي يمكن المامور ذي نصر شيئين حالده قبل أولئك خواص تلمامه هذا نصر شيئين إيمانك شاكتين المؤمنين تعهين يقولك فسادين إصلاح الشاكتين عقل إيمانك عقلك اللوية عليه ما نقاب النمضة سميه ما نقاب كالنقضي إيمانك لما قول النقضي قلبه وحكوش يغي لما قول كالتقي تشيسك شيء إلهي كتشيس يعني المؤمنين تا لكن تشيسك الله حق سكين وكل عي أولئك قواسي الذين كل وين اشتروا إبسدي الضلالة بعد النمضة بالهدى حنوجي كإبسدي فما ربحت ميثائهم تجارتهم جناع سجول وما كانوا مي أهان مهتدين وهم سنة مي نقول مركا قبل واساس maxay sameeyeen shiraab waa iibsi lacagta ay bixiyeen waa hanuunkii waxa ay ku soo bedeshayna waa baadinimadii saadaraadeen akhadhu dalalata wa taraku huda baadinimada way soo qaateen hanuunkiina ka yimaadeen ka soo dhaqaajiyeen marka ganacsiga noocaas ah oo qofku uu sameeyo ganacsi faa'iido leh maaha hadduu wixii qaaliga ahaana bixiyo وحليتنا سوقاته وحن خسارة كتير لفائدين فما ربحت تجارتهم ينعس جوداسي بدل كأي وحسك بدل شيء فائدة ماله والنتيجة فما ربحت تجارتهم تجارة جوداسي ميثائيين وحفي عنه فائدة ميهن بالخسارين لنعك لنا وما كانوا مي أهان مهتدين كوهمني محل وش هذا يعني قاب كان مركز سنين يينا عقل iyo maskax iyo rushdi ma isticmaalin taladu waa ka xumaatay way taladu uma toorsin wama kaanu ma yahayn muhtadiina kuwa hanuunayo taladu u saxnay oo taladii ay go'aanka ku gaareen wax kala bedeshaan oo ganacsiga noocan sameeyaan talaqa loocan bay ahayd tala saxan ma ahayn wama kaanu muhtadiin saasa Allah subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay مثلهم كمثل الذي استوقد نارا والله مهما هي مركز صاليال بلو سمي حال ربع حمانته إلا تصو waxay ka yimaadeen waxay ka tageen
iyo waxa u dhaxeeya la tusaya markaas tusaale laga bixinaya مثالكana waxa lagu fahmaa hanuunkii ka yimaado baadinimo ay qaateen مثلهم تسالهoodu كمثل الذي sidii kii oo kale way istawqada shitay naaran dab فلما goortii أضاءت أي إفصي ما حوله وحي هريريسا ahaa ee uu iska arkay waxa ku dhadhow bahaalo iyo qoryo iyo wax wanaagsan iyo wax xunba ذهب الله ألا وحلتني بنوره نور كودي وتركهم حكجتني في ظلمات مجدية دحدود لا يبصرون حالهم وحاكي مجدي أنا حق أركين لكن لا يجتني صم دقول يالوي بكم أفلاو يالوي حق ما مقلان كما نهضلان فهم يجوا لا يرجعون صونهم ما يهضلان halka markaad eegto waa qof meel jooga ay baadiye ama duura uu jooga kadib ma garanayo ma masba ku dhow abeesa ku dhow halaq halka jira qoriga mudaya qodax baa ku dhow ma garanayo xaalad sayta markaas wuxuu sameeyay dabush markii oogtu baxday intii uu dhaweeyo dhaba u muuqatay oo amnigu helayaayo wuxuu iska ilaaliyo iyo wuxuu arko iyo wuxuu ku intifaaca iyo waxaas oo dhan u soo baxay kadib xaaladda isagoo ku sugan ayaa dabkii dimay mugdigii uu markii hore ku jiray mugdi ka sii badan buu gelay oo indhihii nuurka taabtay mugdi badan bay sii gelayaan kii ka sii badan kadib mugdiga waa ku sii farabatay waxa uu arkaya male indhaha fara laga gelinay haddii uu cid cidila hadli lahayd oo toosin lahaydna maba dhagool war xaggaas laga xigaa hadii la oran lahaa xagga u soo dhaqaaq war dhagool xamaqna maayo hadduu isagu qaybsan lahaa oran lahaa warii kaalayana halkan ku go'doonsanahay waa abkan waa akhlaaq weey ma hadlay suuq male maxaa marka laga suuleeyaa fahum la yarjiun soo noqod male marka wakaas inuu soo noqdo oo dib ugu soo noqdo gurigiisii hooyadiisii lagama yaabo marka munaafiqiintu waa noocaas marka maxaa ku dhacay iyaga laba nooc munaafiqiina bay labada aayadood kala sheegayaan aayad dambe tusaale kale weey kuwani waa nooc munaafiqiinta kamid ah waa nooca Allah ku sheegay suuratu munaafiquun dalika biannahum aamanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim hum la yafqahun iimaan bay yeesheen oo ilaahay bay rumeeyeen kadibna way gaaloobeen marka macnuhu waxa weeye markii ay iimaanka yeesheen waa markii dabku u baxay ee iftiinka arkeen oo wax kala furmeen noloshu u hagaagtay marka weeye markay iimaanka heleen markay ridoobeen ee iimaanka ka noqdeen ee kufri ku noqdeen iyo gaalnimada qolada dabkii ba ka damay dhagoolnimadanina xaqiyaan gelaynin hadii loo sheego oo qofku marka uu caadiga yahay ay wax gelaya laakiin markuu fitnoobay balaa qaadato waxa weeye maanta hadii lagu adimayo xaqiyaan gelay وأفلاو حق عفو فلا قادم معي ساسا مرك الله سبحانه وتعالى وهل كان كجور رمي وحليا مثلهم تسألوه أي حق كجتجن هنونكي وبعد لماذا أي قطعتين تسألوه وحلم دي هذا وقول تسألين كرا كمثل الذي سيدي كي استوقد الشيطان نار الضب كي أوك تدبك عشتة سوق ميل من دورة مية فلما قرتي أضاءت أي إفصي ما حوله وحهاره ساها ذهب الله ألا وحلتني بنوره نور كودي بلته سقى يعد لسعك جماعة سيد وتركهم حكجتني في ظلمات المدية لحدود لا يبصرون عن الحركة مركا هل كان وحكتني وامحي نور كلا كتني مثل مثالك مركا سفي عن الله وحو ضبكو واحتر يوحيال بواليه واحتر كيسو ونور كي يفتينك وحي الذي سنا وجبشدة قيق وحاس نروح عليه نور كذا كتري وحي يبكى لعبة صهر يده طبكي جبتكي قيقي وحي ولا يلا وضرف ليه أنت في عمل بكتبتي وتركهم حكتي في ظلمات مجدية لحدود مجدية اسمها وشكي كفري النفاقي مجدية لجتي لا يبصرون وحبارك ما يانو وده خيرنا كهنوني مايان خيرنا قرن مايان سمون
دغوليال وي لا يسمعون خير مقل معايا بكم أفلاويال وي وحترى ونفع له هذا معايا عمي إن دوليال وي وحتى هدي افتين أصول نقضه طبكي ما عندها اللي تجيه حتى هدي افتين صار نقضه افتين ده بينادو توشش في قراء أبوه طيب الله كانوا وعمي وإن لا يهينه أحباب تري ما يسمع فهم يجوا لا يرجعون صار نقض معايا يعني حق النقضان لقى ما يعلم حتى افتين ده كله أحباب تري معايا بعد النمو داس يكون احتريه صالح يا الله سبحانه وتعالى كبحيه نوع المنافقين تكمل كاها أنت إيمانك يا شان كالنقض أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق كان وتصالك له تصالحهم كلنا والنوع كل المنافقين تكمل هو محي وقوة يوم شك لكتيران ورع ومركي أركان دين يحقون في عين هنا القرآن لجيستان والله دينته في عنها الأولانية ونبي هو حق حقي حاجلي يديره حبار مركي شوقنا بنك كلا كل يوم بدل يوم كفر قال لماذا يروحن شك دين ما حق صبراني مركا دب كتيرة مروح هياجي مروح حق حماني اللي يقول أو كصيين أما رب مهيجان من السماء وتلك كيني فيه بحديث وحع ظلمات مجديال بقى ورعد أنكد بقى وبرق اللعب بقى مركا وقرم ميل مريسا ينا ميجي كلمة روب ميجانا برت صاري روبكو مجدي ووطا والمركا دعيركو ودأي يسوي شركو شوغو ضروربا تشقوا ميل والما مجدي صارا وحمجدي راعا أنكد كيه لا مركا يجعلون وحييليا أصابعهم دقوهودا أصابعهم فرهودا في آذانهم دقوهودا لحيودا وفرح الدقاها قلنيا محيو قلنيا من الصواعق ضنبيضة دعية حق درادود حذر الموت يقول بقدين كدكتون بمشروع وسلين أرمي ضنبيضة أسي أرمي إذا كل دعا ماشي الضنب بعد دعية وهلاع بعد ضحية أنكد بعد ضحية هوش ما يرى مبدأ الوجرة حارب أسر الوجرة والله ألا محيط متكوبي وهريري بالكافرين قال يكاد حسيا البرق هلاع يخطف إنه ضفو أبصارهم أرجل ولا لعب هلاع وينانتيسا إنه عندها كطوره وأرجل كضفو أي سجيا هلاع عاس كلما مركز طور أضاء وإثر لهم إيجا هلاع مشوا بسعونيان فيه الحديث مركا أنت هلاع يفتين غير هلاع هرأي دقاقيان حوغي وإذا غورتا أظلم وكمدوا بادو اللي هلاع دائما هو جوجت معاه مركو مدوا بادو عليهم دشودا قاموا استاغيا لما سعون كرام مبدي ميل ولا قاق كرام الله حضو الله دونو لذهب لتجي لها بسمعهم مقل كوده وأبصارهم أرجود وعلى وكحين لها ومقل كنا أنكد يضنم كدعيا بدقتير لها أرجنا لا عاص ضف لها لا كسار لها كقاضي لها لكن ولي من إله بها يستار ولي إله بس كديني إن الله ألا على كل شيء وحكسته قدير وأودا وعلى سبحانه وتعالى أود هل كان مركا مثال كان لبعض ومنافقين النوع كامله وقواس حق مرنا وقنيه مرنا شكيه قلب جود مركا حال شكي كفري أي كتشرة أي مغنقش روب كاس الله سبحانه وتعالى أوت المامي يا كان لو شيء غيرك كإيمانية ودينتي يا خيرك ظلمات كان يمجد لشيء يعني واللي فيه ظلمات مجديال بقى مجديال شاسنا والشك والكفر والنفاق يجا هريم وحال الشيء رعد أنكد كالوجود سالينا وحيابها قلب يقول أرجع حجريني وهذا يقول منافق نجرب قبا ولا قبا وما له بعك أرمى له فهمان يلقى سهرارون سكيه يجيا وكاسي أرمى كقرطان نجرب قبا وبقى يا مك
racdigu onkadku waa cabsida ku jirta bajinaysa qalbigiisa fadhida oo Allah subhanahu wa ta'ala suurad kale ku tilmaamay yaxsabuuna kulla sayhatin alayhi qayladii baxdaba dushooda moodaya hala wuu iskaga moodiyay baqdin qayladii soo yaadaba tolo meedika la yiraahdo haya meedika la sheegay ayadii soo degtaaba baqdin bay kordhinaysa tolo armeeydi fadaxadaysa hilaaca marka ayada kala tilmaamaya law yajiduna malja'a aw maqaratin aw mudakhalan lawallaw ilayhi hum yajmahun meel uu fakadaan hadii ilaahay oo bixi lahaayeen baqdinta haysa munaafiqiinta barqiga lagu tilmaamay halkanina ilaahay hilaaca baa jira hilaacaasi waa nuurka diinta ee qoladan qalbigooda marmar taabanaysa nuurka diinta iyo iftiinkiisa marmar qalbigooda qaadanayo oo fahmayo baa la sheegay Allah subhanahu wa ta'ala ma wuxuu dhagahay faraha gelinayaan iyagoo ka baqaya geeri laakiin dhagaha faraha la gelinaya geeri ka celin maayo oo danabka dhacaya dhagaha faraha gelisay iyo kaaga tagaya hadduu kugu soo socdo dhagaha faraha geliyay xasi ka baajin maaya markaas leeyahay munaafiqiintan baqdintan iyo waxan iyo khawfkan xatari maayo sababtu maxay tahay الله محيط بالكافرين قال الله واهريري وديس يمشيئديس يقدريس كوس جيران marka wax kasto sameeyaan iyo hareeraha ay baaladeymoodka waxan xatari maaya awood ilaahay ku hoosiraan mashiyaadiisa doonistiis rizqiisa cunaya dhulkiisa maraya meelna awoodi alle kuma bixin marka fircoon iyo kan la ka waran halataaka hadithul junud askarti fircoon wa thamud halatu bal alladhina kafaru fi takdhib wallahu min wara'ihim muhit ilaahay ba qoobay meelna kuma bixi karaan qudra iyo awood alle waxa kale aayada tilmaantay hilaacu wuxuu sigayaa indhaha ka dafo indhaha ka tuuro awoodiisa iyo xooggiisa iyo indhahooda tamardaradooda hilaacu awood badan yahay indhahoodana waa daciif marka taas maxay tahay iimaan la'aantooda iyo sugnaanshaha aan iimaanka ku sugnaanayn ayaa waxa weeye hilaacani waxyeelo uu ku yahay marka nuurkan iyo iftiinkani mid ay ka faa'iideysanayaan oo ka cabayaan ma aha iyo waxyigan iyo diintan ay arkeen dib ugu filan yahay marka mar walba oo waxaan ku dhacaan dib ugu korinayaa wax tar ma aha ibn Abbas wuxuu fasiray yakaadu albarqu yakhtafu absaarahum xuleeyahay yakaadu muhkamu alqur'ani yadullu ala awrat almunafiqin quraanka muhkamka ahi wuxuu sigayaa in munaafiqiinta ka shifo awradooda banaanka soo dhigay ceebtooda waxyeelo marka ku yahay inuu tusoo ceebtooda soo saaro ayuu sigaya munaafiqiinta marka waxa Allah subhanahu wa ta'ala kullama adaa lahum mashaw fihi wa ila adlama alayhim qama hayta tan waxa weeyaan markuu ifana way soconayaan marka kalena uu istaagaya waxa lagu fasiray kullama adaa lahum kullama dhahara lahum min al-iman marka iimaan u muuqdo way weheshanayaano xoogay iimaankii ويرى راعيا كدبنا شك با إيمانيا مركاسا شكيغاسي كمدوبينيا إيمانك xoogay u yar iftiimay shaki ba ka iimanaya shaki ba ka soo fuulay kadibna iyagu wareersan bay istaagaya meel u dhaqaaqan garan la ku sii wadi maayaan iimaanka waxa kale lagu fasiray munaafiqiintaasi markay arkaan islaamka cizadiisa iyo inuu guuleystay iyo awoodiisa kor kacday xagga muslimada uu soo badanaya marka xoogay wax isbedelaan muslimiintu hawl ku yartimaadaan xaaladu wax iska bedelaan munaafiqiintu wax yar hesho magaaladu markaasna xagana u noqonaya gees bay ilaahay ku caabudayaan xaqi bay garanayaan way ku hadlayaan kadibna way yar toosayaan markaas hadana dib u noqonaya gaalnimadoodii ay ku noqonayaan sidan marka hadda lagu tilmaamay ay aakhirana ahaanayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo waran marka qiyaamo la tago yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نور بالله قيمنا يا مؤمنين تقول احترام نوبته كده مركع مدلل صعوبه فنور كدمينا يا مركع سوحورنا يا انظرونا نسجا انا نور كايدن لا افسنه كده احنا حاجه دنبا نور جرايه هل دب النقطه مركع جيستان فضرب بسور انه باب باطن اذا بقى ممكن وينيه لنا عن عذاب كارنا عن حريص مركع اخرنا ساعه سو كلام با نور انت لو ديرو وقدميه إلا عاص هذا القدمية
alla xulay aw kasayibin aw ama mathaluhu tisaluhu kasayibin sidii roob la yigaana oo kala weey fiihi dhexdiisa waxa dhulumaatu mugdiyo waracdun unkur iyo barqun hilaa yajcaluuna waxay yeelayaan asaabi'ahum dhagahooda asaabi'ahum faruhooda fi aadanihim dhagahooda dhexdooda gelinaya min as-sawaa'iqi danabyada daraadud حذر الموت يقول جيري كبقية لأجل حذر الموت مفعول لأجل والله ألا محيط مده كوبي وي بالكافرين قال هذا والدكتوري داسي خاطر يمسو بس كما إلى علم كرا إله يكاد وحسيقيا البرق هلاع يخطف إنه ضفو أبصارهم أرقيدود وإنها بوايان ومركا الدين تري حقا أركيان حوق ما في النيجا كلما مركز أضاء وإف لهم يجا مشوا وسعونيا فيه الحديث ومركا إن يردين تبحضه وقلبي وضوء عرقه حوغي بالدين الراعية وإذا أظلم عليهم مركو كدموا يشكي وريركي وصوغرا فهم حمدينا قاموا استاجيا اللي هو وريرين ولا دقائق غير مايا ولو شاء الله حضوا الله دونه لذهب ولتجي لها بسمعهم أرجود نقل كودا وأبصارهم أرجود الله وحكى حين لها لكن الله سبحانه وتعالى اسكداي ولي حبيا حسان من غير بجر إن الله على كل شيء وحكستا قدير ألا أودوية ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما آمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه أجمعين